بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو اسمه يوسف أحمد cismaan Khayrre. galabta waxaan halkan u imi oo doonaya inaan ka hadlo anigoo ku hadlaya afka dadka ka soo jeeda gobolada Soomaaliyeed ee SSC Sool, Sanaag iyo Cayn qurba joogtooda degan Europe iyo UK, Australia, North America iyo kuwa gudaha joogaba. waxaan doonaynay ismada iyo waxgaradka iyo cuqaasha intaba afkooda anigoo ku hadlaya. waxaan doonaynay galabta inaan halkan ka cadayno oo fariin u daro dowladda federaalka ee Soomaaliyeed, maamul goboleedyada Soomaaliya ka jira dhammaantood, dowladaha dariska ee Ethiopia iyo Kenya. waxaan leenahay dowladda federaalka ninka la yiraahdo Cali Khalif Galaydh oo hadda xamar jooga sheegtana magaca dadka ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Sool iyo Sanaag iyo gobolka Cayn SSC wata magaca la yiraahdo khaatumo. waxaan u sheegnaa dowladda federaalka si xurmad leh, maamul goboleedka Puntland si xurmad leh, ka Jubbaland si xurmad leh, kirilka Soomaaliyeed ee jigjiga si xurmad leh, dowladda Ethiopia si xurmad leh, Somaliland si xurmad leh, Galmudug, Banaadir iyo dowladda federaalka aba Cali Khalif Galaydh in aanu matalin oo aanu wakiil ka ahayn oo aanu madaxweyne maamul goboleed oo cidi dooratay ahayn, cidna aan wakiil ka ahayn, baanu u sheegaynaa Soomaali oo dhan. ninkaas waa nin Soomaaliyeed, wasiirna ahaan jiray, ra'iisul wasaarena soo maray. dowladda Soomaaliyeed ee federaalkuna iyada Soomaali oo dhan wakiil ka mandatekeedina haysata. wixii gaar ah ee isaga gaar loogula dhaqmayo ama lagula dhilgaraynayo iyo ciddii la dhilgaraynaysa iyada u taallaa. magaca khaatume ee uu sito waa la sameeyey, waana lala baxsaday oo rag baa daba marteeyey. heshiis laguma aha sida uu isagu ula galay iyo ragga la midihii. cid magaca maanta uu wakiil kaga yahayna ma jirto. beesha tan iyo dadka kan degan gobolada Sool iyo Sanaag iyo gobolka Cayn ee Soomaaliyeed ee u taagan midnimada Soomaaliya hadda waqtigan xaadirka waxa ka mas'uula dadkaas isimadooda iyo ciddii iyagu ay wakiishaan isimadaas. isimada ugaas Cabdilaahi, garaad Saleebaan, garaad Cabdirasaaq, garaad Soofe, garaad Buraale, Suldaan Siciid, boqor Cabdilaahi iyo cuqaasha raggaa iyo wixii ay iyagu doortaan ee ay magaranaysaa wakaalada siiyaan ayaa beeshaas ka mas'uula oo deegaanka ka mas'uula. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan si xushmad leh uga codsanaynaa Soomaali oo dhan, maamulka Somaliland, Puntland, Jubbaland, Galmudug, koonfur galbeed, dowladda Ethiopia, dowladda Kenya, intaba United Nationka Nicholas Kay. waxaan intaba u sheegaynaa Cali Khalif Galaydh in aanu dadkaas wakiil ka ahayn. wax dadka maskabkooda ah iyo wax alaale wixii dowladda federaalka ah ee ay xuquuq ugu leeyihiin ee ay Soomaali kaga mid yihiinba aanu ku matali karin dadkaas oo aanu ciidina wakaalad ka haysanin baanu halkan ka cadaynaynaa. hadalkani waa hadal la isku wada raacsan yahay oo dadka beeshaas iyo deegaanka ka soo jeeda oo dhan ay isku raacsan yihiin. marka waxaan leenahay hay'adaha warbaahinta laftigooda wixii macluumaad dheeraad ah looga baahdo ee faahfaahin dheeraad ah arrinta ku saabsan waanu cadaynaynaa. marka Allahumma ballaqtu. Soomaaliya wada ogtihiin, waa idin soo gaarsiinay, waa sheegnay. reer Buuhoodle waxaan leeyahay maanta waxaad isku laysaan oo isku xabadaysaan ma yaaliin.
cid idin maqano xamar idin jirta oo idin maqanina ma jirto cid kale oo meelaha kale aad tuhmaysaan idin jirtaan ma jirto danihiina iyo midnimadiina iyo wada jirkiina iyo sidii aad wax u qabsan lahaydeen baa la doonayaa in la burburiyo oo cid waliba usoo dheela dhaafsatay arrintaasi waa arrinta lagu baabi'iyo deegaan iyo qarannimo iyo midnimo lagu baabi'iyo laydin soo dhex dhigayaa horena waan uga dignay reer Buuhoodle waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baleeyahay wixii maanta dhacay dib iyo u dhicin dibna ha looga noqdo nin khaatumo sheeganaya iyo nin Puntland sheeganaya iyo nin Hiblaayo sheeganaya toona yaan dadka reer Buuhoodle dantooda ka weyn dantiina ilaashada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh